bishan ugu dambeysay oo stadium kubadda cagta ku yaala caasimadan dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ka socdeen tartanka kubadda cagta ah ciyaaraha gobolada iyo magaalooyinka ayaa wareegii labaad oo isugu soo hareen 8 kooxood wuxuu yahay mid soo dhamaaday waxaana xulka maamulka magaalada Goday uu la ciyaaray ciyaartii ugu horeysay xulka gobolka Liban ciyaarta waxa ku dhamaatay gool iyo gool balse rigooryaal loo dhigay 3-1 waxay guush ku raacday xulka maamulka magaalada Goday gobolka Afdheer waxa uu la ciyaaray maamulka magaalada Qabridahar waxaana ku dhamaatay 3 gool iyo eber waxaana ay guush ku raacday xulka gobolka Afdheer gobolka City iyo gobolka Nogob oo wada ciyaaray ayaa ciyaartaas waxay ku dhamaatay 90 daqiiqo ee loogu talagalay gool iyo gool balse rigooryaal loo dhigay hal iyo eber waxay guush ku raacday xulka gobolka City gobolka Doolo iyo gobolka Shabeelle oo shalay galab wada ciyaar ayaa ciyaar waxay ku dhamaatay hal gool oo guush ku raacday xulkii ku ciyaaray magaca gobolka Doolo ciyaarta sama finalka waxa isugu soo haray 4 kooxood waxaana wada ciyaar doonaan sidatan maamulka magaalada Goday waxa loo ciyaari doona gobolka City gobolka Afdheerna wuxuu la ciyaari doona gobolka Doolo ciyaarahan waxay ahaayeen kuwa xisaab badnaa ee ka dhaca caasimadan dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya magaalada Jigjiga ee tartanka ciyaaraha gobolada iyo magaalooyinka waxaana ku soo beegnay xilli dhalinyaro fara badan oo ciyaartoy ah oo tayo leh ay ka qayb galaan tartamada ciyaaraha iyo xilli doohabeen lagu sameeyay stadium ku yaala magaalada madaxda deegaanka xarunteedan Jigjiga isla markaana ay ka qayb galayaan taageerayaal aad u fara badan oo ka kala yimid 10 xaafadood ee magaalada Jigjiga iyo waliba qaybo kale oo bulshada ah oo ka kala yimid gobolada iyo magaalooyinka ku kooban yahay deegaanka Soomaaliya Itoobiya una yimid magaalada Jigjiga inay ka qayb galaan daawashada tartankan ciyaaraha gobolada iyo magaalooyinka waa kuwan qaar ka mid ah ciyaartoyda aan ku kulnay garoonka stadiumka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga iyo waliba taageerayaashooda oo ka warbixinaya dareenkooda Muuse Muumin waxaan ahay kabtaanka gobolka City marka maanta ciyaartu aad bay u wanaagsanayd waxaanan soo muujinay aad ugu qurux badan iyo layso shucuurteena maanta ma soo koobi karo xitaa taageeraha shucuurtiisa maamulka gobolkeena aad baan u faraxsanahay maanta kulay takalena waxaan rajaynaynaa taageero maanta si noo garab joogeen inaan guuleysano insha Allah waan guuleysanayna salaan waxaan u diray taageeraha meel walba inoo joogaan maanta ay naga daawanayaan maanta waan guuleysanay takalena ina saa iyo si ka daran noo sugtiin sida ay si lacag baanan u sii dadaalayna insha Allah tarankii aad baan ugu faraxsanahay City baan taageeray aad shucuurtayda iyo farxadaydu aad bay wallahi weyn tahay maadaama farxadda aan la soo qiyaasi karin sababtaana waxa keentay maadaama gobolkaygii City ahaa uu maanta 2 gool iyo haddana ligoore uu ku qaaday wallahi aad baan u faraxsanahay